الحمد لله برنامج خبرة وداق وجد كي أنا سمينه ووداقيست خبرتها إيه ويارق نمدا مركا مالين بقف على صمر تقالا ما أنت سليبان بمرتيا بروفيسور سليبان أحمد قوليد ما تشعله ميكروفون هذا صحافة أنا ما تشعله مركي أنا تجني وحنا هين تيم باليرعة أرورتي بقى وحنا سرعني تيم باليرعة وأنا كانوا جم هاد علينا خالد نور حسين حمد عبد الرشيد صومنا آسيا أبو بكر حسين يسكدوا عبد الوهاب حسين مؤمن يعني جو أحمد إسكايا أنت سبع أرضي جامعة عمودية بانهين حفيز كيس أنا قلت تجني سوى أكسن نحريس والد نيمو أي كل ده هنتون وصل دوي برامج كمان كانوا سجنوا إحنا نقولي هذا يرانو صحافة ده متشعلي أنت صو صحافة ده نوي تشرين وكعود دارتي مركب حكونوا ده أنا قلت أرضي ده دي بانهين مركب صحافة دي وكسوير ورجني أنا قلت أرضي ده دي برون دقيقة أتصو صارتي جامعة عمود أيانو نهاي marka uu ku mahadsan yahay inuu aqbalay in khibradiisa iyo waayo-aragnimadiisa inala wadaago laakiin waxaan ka marxaati kacayaa 2 bilood baan professorka kolba u tagay xasuusinay kolba hawlo badan baa ayaa runtii uu hayeeyo uu qabanay intaaba waxaan ka dareemayay inaan anigu kalifayaan marnaba jeclayn mikrofoonka isa sheegistay in meelaha oo kale la yimaado professor waa ku mahadsan tahay khibrad wadaagna sumcad weyn bay noo tahay in adiga oo kale lagu wareysto ma jeceliina ku sii dheeraado waxaan doonayaa barnaamijka khibradooda keligii iskama socdeen dad baa tiirar u ah oo haya waxaan aad ugu mahad celinayaa Ismaaciil Aadan Miicaad waxa kale oo isagna u mahad celinayaa Cabdulqaadir Aadan Nuur horta intaanan su'aasha ku bilaabin professorkan bal dadka salaam kooban soo dhow aad baan idin salaamayaa waa waladeena casiintina waan mahad celinayaa inay iyaga iyo aniga isku kay xidheen waanan waxa laga yaabaa inaan waan ka raagay marka macallinimadii waxa ugu dambeysay teaching balan 2009 kii baa kalaaskii ugu dambeeyay aan dhigi jiray marka haddii aad yar dareentaan inaan macallinimo saan ahaan jiraan ay ahayn waa ka raagidda waanad mahadsantihiin waan soo dhaweey su'aasheeda koowaad waxay noqonaysaa professor adoo khibradaadii iyo waayo-aragnimadaadii nala wadaagaya horta barnaamijka khibrad wadaag 3 eray buu taagan yahay taariikhda qofka marka Saleebaan taariikhdiisa wad garanaysaan khibradda oo su'aalahan aan weydiinaya khibraddu markay dhamaatana inteenan waa inuu cid tusaale u noqdaa marka wuxuu tusaale insha Allah inoogu noqon doonaa qof isagu shakhsi ahaan waa guuleystay hawshii uu hogaaminayay ama mashruucii noloshiisa uu hogaaminayna waxtar u noqdo su'aasha koowaad waxa weeye maxay ahayd aqoonta iyo xirfadda aad baratay ee professor Saleebaan kan umadiisa facay iyo naftiisa ka dhigtay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد مركي أنا لي ورأوريانسك إيمانيا إنكم مرقوفك هذا اليوم وهو ورصداتك ماشي إيمانيا أوريانسك لأنه حكيك وانت وحو وفرين يقف فرين تقاض ديبيا يقف كل لور دريو marka daadu waa kamid waxa bal ka waran daada average ka inta dumalanaysa wuxuu waa dhalinyaradan 25 ilaa 32 meelahaas ay u badan yihiin waxa 32 ka yaraba halkan igama muuqdaan baan wanaanayaa hada la yar weeyda waa dadkii majuurka ahaa ee bislaaday aad iyo aad baad mahadsantahay horta waxa barashadu waa wixii Ilaahay ku baray Ilaahay qofka wuxuu barun baa anfacaya وطريق دير وانت عن شغيني هي انت عن وحبرني مركز اسكو درت لبدا وحنو ملانيا ودور يا كنت سنه شن يا كنت سنوي وحن ما يا وكبدان تحي انت شغيني وكليه هي شن يا كنتنا لبا يا كنت كنا وحبرشدان بلاابay marka waxbarashadu waa silsilad dheer oo socoto taxana meel lagu joojiyo mala aqoontu waxa la yiri by definition aqoontu waa maxay baa leeyahay marka ama wax barato ama wax barashadu waa maxay waxa la yiri waa wixii ku kordha ee positive ah ama wanaagsan maalinta dhalato iyo ilaahay dhimanayso wixii ku kordha wax barasho leeyahay ma aha uun tan afarta gidaar u dhaxaysa ee fasalka taas waa schooling وسكول بينو كجرا لكن waxbarasho way ka balaaran tahay tan nolosha aynu ka barano experience hatta growth ka markaynu koreyno waxaan oonana waxaynu wax baranayno allama lisaana ma lam yaclam ilaahay u badadka bara laakiin waxbarashada fariisiga goorta waa ta hadaad u jeedo
waxbarashadan dambe ee formalka ah I think taasaad u jeedaa horta anu waxaan ku dhashay in yaran kuu idiin sheegay waxaan ku dhashay banka jigjiga ka sokeeya waa aniga iyo markii aan waxoogay iskuulka la gaadhay aabbana wuxuu ahaa allah u naxariistee aw barre markaad dhaafto dhulka gadabursiga intaa banka dukaankii ugu horreeyey buu ku lahaa oo aqal yaroo laba maan ku koray markuu maqlay bankaana waxay iskuul yihiin ma jirin aniga kii iga yaraa buuna keenay aw barre oo uuladii ugu horreysay laga qorayay aw barre reserve area iyo hawd laba iskuul bay dhahayd ay shacawaatii la soo xidhay laakiin awaare iyo aw barre ay ahayd labada midna hortayo iskuul ma lahayn ingiriis baana haystay wuxuu maqlay iskuul baa la qorayaa waa dee oday baamistiro ilaa berbere socon jiray wuu garanayaa qiimaha iskuulka walow xagga aan ku koray aniga wuxuuna soo kaxeeyey inankii iga yaraa aw barruuna keenay labadeedii baa la noqonay cabdishakuur baa la yidhi axmed guuleed waa nin aniga igu xigay oo iga yar isagu imaka hadda German nationality buu haystaa laakiin soddonkii sane u dambeeyey wuxuu u shaqaynayay jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa waa nin expert ku ah satelliteska iyo hawada sare iyo wixii uu dusha laga sawirayo hadda uu retire garoobay oo waa sidan aanba howlgab u noqday ayay isna howlgab u noqday saddexdii sane aw barre allah u naxariista labadaba saddexdii macallin ee noo dhigayay way saddex macallin oo yaab lay ahaayeen dee markaynu yaryarahay macallin waliba waa malaa'ig buu kuula egi macallin reer Hargeysa oo allah u naxariistay macallin aadan la odhan jiray allah u naxariistay isagana taaniyadiina waxaanu naadir noo ahaa macallin baa la keenayay allah u naxariistay isagu kal saddexaad baa u dhintay mise kal hore xasan meegaag samatar intaan noolaa laba jeer baan anigoo cirro la ooyey runtii ilma iga daadatay maalin waa maalintii hooyaday dhimatay annagoo 10 sano is arag ayay boorama ku dhimatay anna xamar baan joogo dhulka berigaa u kala xidhnaa carruurteeda ayadoo tiraaba maxaad la ooyi malasaal idinka hooyadiin waatan aniga hooyaday baa dhimatay hooyadeena may arag iyagu oo Itoobiya joogtay marka maalintii labaadeen ooyna waa macallinkaasi markuu dhintay xasan migaag samatar markii geerida la soo sheegay wuxuu ahaa nin murabbiya taqiya diinta aad ugu dhaqma naxariis badan haddana qaladaadka aan kaaga kacay ogow ninka naxariista badan maaha nin jilicsan necessarily maaha waa nin ku toosinaya oo markaad khalad samayso kugu yargiijinaya markuu arko si aad wax u barato macallinkaasaan ayaa runtii isna oo markaan soo xasuusto waa naxaa markuu Mareykan buu deganaa reebor waa xasan meegaag samatariska waa garanaysiin waa reer Hargeysa oo colkiina daada yari meeydaan soo gaadhina niman Ismaaciil Samatari waa reer meegaag samatari reer Ismaaciil Samatari family wada educated ahaayeen macallimiin baa ku jirtay siyaasiyiin baa ku jirtay askar baa ku jirtay marka ninkaas oo markuu Mareykan ka yimaado ama camuud buu ugu iman jiray oo halkan u iman jiray oo aad buu inoo taageersanaa ama ana Hargeysa ugu tagi jiray macallinkayga saddexaad ee elementary-ga oo bare wuxuu ahaa allah u naxariistay waa la dilay meel lagu dilay xamar baa lagu dilay oo xamar dad badan bay galaafatay waa macallinka looga dhigay iskuulka Laascaanood ee secondary schoolka Muuse Yuusuf macallinka ninka reer Laascaanood ama Laascaanood tagay Muuse Yuusuf secondary school baa ama intermediate baan walaal midkood ayaa ninkii saddexaad ninkaas oo ahaa isaga geeriyo baa ku dhacday xamar habeenkii uu ka baxayay sheekadu way la yar baarbaariya raaliga ahaada waa in yar background habeenkii maxamed siyaad barre xamar ka baxayay ayaa isaga iyo nin abyan la odhan jiray halkana garanaya la fuula wixii way garanayaan ama wasaaradda waxbarashada abyan la odhan jiray oo caam ahaa oo education isweyn ahaa iyo nin cabdi tuhal la odhan jiray oo ingiriiska ka yimid oo saddexdaba reer Laascaanooda ayaa carruurtoodii bay soo qaxiyeen oo la foole waxa u soo qaxay markii xamar laga qaxayay qolaba meel ba u qaxday
أو برا يجلس أنت دبوا سوق قبل معلمين تي ورت يسقول كاسان قبل عامل وتعلينتي ترى تمرك إذا ما تينا وهل تجني عمود وإنترميت كي وجوري والإنترميت كي الله بعد تلك كهو الشيخ هو هرجيسة يجبيلي يبور ما عمود بالجري شري مركا واحد نقول الله لما elementary school أواري أو برا كي بورمي كي قبيلي يلا بهر جيسا عمود تطبق السنوات لما يسمي رالي هذا وحبر الشدة إذا ما قبل هذا ورتين تانا ويرجع ما دوتين تبى تو بركي تحكي أنا بس كذا خلاص كي يجي أو برا تقولي ما كمان هذا ما نأخذ واحد شغال قرن سنة هذا النور معاديو محمد نور فهيو شابه يستيو إذا قصده وري شوقه ونقول شوقنا وها أنا بس كذا إنترميت مركان قبل وها سكندري عمودات بانك الله وأتكور قبتانو عمود وها هاي سكندري سكولكو سكندري يقول سومالا بروتكتريت كتيري مركان إنك جامعة كلاي نوع هاي نقول له هذا إنجليزي هل كاسو يسكول كاك أنا عمود بوها إلى عرقابو إلى الله صوري هل كان اللوجو يمشي عمود باللوجو يمشي مركا إنك جامعة ذوكل أيه نوعي وها مركا أنت الدعوة سعود الله الشيخ مال النوبل ديك برتنك هلا كأنه برتنك هلا كأن هل سنة مركي أن كتيري أيو إن جبنا مدينة إيجار سنة هاي صدح بلاد يا أفر بلاد مالها أيه واحد اللي يلي يسكول كي عصبابة لما ما يسترى الشيخ اللوجورو إنجليز كما هو كأني تطبيع طبعا بابور أنت إذا كنت تالكا وهل النجي يا شيخ ولي الشيخ نقولكم مدوي مركز الشيخ لا تشوفوا لا صغري أيه بورمة كدو بورمة أيه كدو السكول كيف أنا هالكا كسدح سنة كذا ما يسنى مركان دارلين تنورن شيء ما نون هذا مركان ما يسنى وهلا يدري مريكان أفري اللي حدنكي أيام تكني وتعليم تهدي سنة جامعة دولك مريكان استيت كانسكو يالله إمبوري استيت يونيفرسيتي اللي رابع قال ناو مريكان ما هدول عادي مركان ما هين ولي لما باسكرين سنة كاسالة باسكرية civil rights lawgi أو واحد كو قرن ماله فربادن نيل مدول لوما أقلا أيه كو قرن و إنه قلنا نيجرو إسكمان نقانة ويقبّا إنه قوة تيرا أقولا سومالي هو في أوبادن بس ده أوبادن أو وضع عص أو متكود أيدي وضع إنجليزي أيه واحد قال بري هدل أيكو قرنتي إنه نيجرو سر الله والرسول وحلا قعنو نكى مثلا بقولي مسؤولي ميدان آخر سنين بورك واحد كوكر مثلا ما يوان آخر سنين ما ها كوكر مثلا إنه نيجرو سر الله تهتين تاسو قرنتي بهاد دونيسا ورنا نيجرو اسمني بين الصومالي بالا قال يقولون forget about it you are just handsome niggeros نيجرو قروح بدل باتينا كم حماش وتبارك you are just handsome niggeros marka horta dhulku sidaas u ahaa lama baas gareyn wixii la oran jiray civil rights lawgi lama baas gareyn may markaas la baas gareeyay bil ka hor ayaa la baas gareeyay oo la yidhi meelaha public oo dhan hal la disegreed gareeyo cid loo diidi karaa oo midab loogu diidi karaa ma jiro nimankii waxay tageen police station-kii bay tageen inaadeen waxa la noo diiday hodheelka halkaasa weydinkii dhulkii waa laga tanaasulay waa la raacay oo waxa la yidhi ninkii yaa maxaa lagu diiday nimankan wixii waa private club waa club private ah waana been buu sheegay mas'ale la kaalay sharcigiisii aduu ninkii uu waayo ninkii baa la yidhi boardkii ka qaad meesha cidna waa cid walbana waa u fasax nimankii markay casheey qadeeyeen ayay magaalada tageen dhinacii madowga oo aan iman jirin ما زين هذا ورويدين حورين ماشي تجا ماشي اللي سوتي ترى ويدين حورين أورد والقي تجا سو ما له حورين تبي وري كوتشرتا ومرة كانوا واقعوا حورين مركا سكول كي جامعة دي أنقلي رنتي واحد من البقوي سو ما لأنه بدن متشرين حسيا شيء مركا بكب هذا مقالة الجامعة ده واحد تصار واحد من شيء يا مليارو
sanadkii aan ka baxayay jaamacadda teaching practice maan geli jiray baa la geli jiray anigu fiilkaygu waa education waa inaad fiil soo qaadataa teaching practice ardayda jaamacadda secondaryyaal leh lanagama saari jirin magaalada laakiin sanadkaa shisheeye baa isku batay ardaydii ajnabigiiyo intii ingiriisiga ugu roonayd ayaa waxaa la geeyey magaalo yar oo Burlington la yiraahdo baa aniga la geeyey 75 kilomitir waa caadi dugsiga secondary wax ka dhigayo macallimiin liberala jooga waa fahmaya wadciga ardayda way ugu dul ilaalinayaan waa intaasaan waxba dhibaato ku gaarin laakiin maalin buu naadirka yimid oo wuxuu yiri please Mr. Gulen adiga ayaa Afrika ka yimi naadir macallinkaasa macallima naga xaruusanaya barrito kalaaskan noo maaweele waa grade-ka saddexaad caruurta yaryar habeenkii oo dhan aan ku soo jeedona sawirradii iyo libaax iyo shabeel iyo waxyaabaha u sawiraayo aroortii baan u galay masaan good morning children I'm from Africa maanta aniga wax idin dhigi xayawaanada idin tusi Africa tiyar baa halkaa ka qayliso waxay tiri oh he speaks like a human being sidii bini'aadamku ugu qosaya aniga ilaahay yaa booyinkeena marasaan yes I'm a human being marasaan oh still he's speaking like a man oo sidii nin buu hadlayaa weliba markii dambaan uga sheekeeyo dhahayo sidii nin baan rag iyo dumar leenahay arun nin baan ahay idinkuna habla iyo wiilal baa isugu jirtaan marka gabadhii tiiray baa ku celisoo tiri dadka Afrika dadka miyaad ku cuntiin maasaani no bariis uma cuntaan idinku haa annana bariis baan cunaa sideenaan hilib cunaa sideenaan khudradda cunaa yartay way yaabtaa tiri haddana ayeydii baa been sheegaysay carruurtu psychologically markaad qabataan waalidkaa been sheegayay iyo waxaa lama challenge gareeyo masaali maya ayeydaan ma sheegayn beene information ku fulan baan Afrika ka aqoonin I see adigu sawirradii maalintii oo dhan ku maaweeliyay way iska jeclaadeen sheekooyin baan uga sheekay markay sii baxay please come back tomorrow waan caayaan bala aabihiin baa idin soo noqdortoogaaro aro illa waxana waan iscelinayaa inta horta wadciga Mareykanka intii beriga sidaas oo ahaa dad soo roonaanaya waliba aniga personally mid kale way ugu dhacday oo markii aan jaamacadda waa sanadkii koowaad markaan gelay ayaa waxa la igu daray 12 Soomaali ahayn 10kii kale waxa la yiri samarka af Ingiriisi 2 bilood barta anna waxa la igu daray barnaamij la yiraahdo experiment in international living qoys Mareykan lagu geenaya noloshooda lagu introduce gareynaya iyaga haldan noolaanaysa for 2 months inta jaamacadda ka hadhay nasiib wanaag fasaxay qaadanayeen naagtu ninku waxa weeye tiriyadan ma akhrisateen Time magazine I think I'm sure some of you idinka qaar baa akhristay Time magazine waa production manager keedii naagtuna waa naag looyarada oo famous waxaanu tagnay Massachusetts meel la yiraahdo Kennedy family-ga iyo dhulkaas galo waa wada very rich marka aqala la kiraysanaya waa beach-kii oo about 20-30 miles socda meesha waa wax madow kuma arag waa wada cadaan iyaga way dabaalanayaan oo badda ma ka yarbaqaya badda iskuma naafiicneen oo malaha berberaan laba jeer arag waa soo socon baa halka anigoo highway-gii maraya agteeda ahaa ayaa halka waxa la igaga dhuftay dhala yaroo biira ayaa halka la igaga dhufto lady nigger get out of the place ka baxmees waa wixii oo practical ah badda waan xanaaqay waan cadhooday waa markay ka soo baxeen waa qada tagnay qadadii maan cuneen waan yar seexday iyagii waxay yidhahdeen maxaa kugu dhacay masaay waxba ma wallahi abitayd maayo la hawlo kala meesha ku jiray cashadiina markaan diiday baan u sheegay dee taas ay qabsatay maanta markaad dabaalaneyseen way la yaabeen inay dhahdeen Soomaaliya aad ka timi Soomaha miyay wada fiican yihiin reer Soomaaliya masaani maayay halkana waa sidii qaar fara badan baad arki doontaa oo noocaas marka taasiyaasha introduction-ka idinku bilaabay waxa weeye horta nolosha Mareykanka inuu tagnay beriga saas ahayd nolosha markaa oo la disdeggareeyay midowgiisa laga saaray marka challenge fara badan ayaa jiray
jaamacaddii markaan 4 sano soo dhammaystay waxaan ku soo noqday Soomaaliya عمود secondary school oo aan ka bax markii hore sanad ateen gareeyay ayaa macallimiinta ka yaraatay 3 nin ayaanu Mareykan kaga nimi oo education mid baa xisaab ahaa saddexdeedii wasiirku wuxuu Allah u naxariistay aadan isaaq oo markii horena interviewka macallinka yahay aadan wuxuu nagu soo qoray saddexdeedii camuud وهالكان وحبرشو كقبل عبي شقة الدولة شقة وحبرشو وهالكان كقبل عبي أنا بري لكي هالكي أن كل رتال بينو بين عمود بين نقطة واستاذ